kulanti wacan oo wanaagsan daawadila idilkiinba meel walbaad naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo idinkaga imaanaya magaalada Amsterdam ee caasimadda waddanka Holland. barnaamijkan ayaan waxaan ku fiirin doonaa kulan tacsi ah oo jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Holland ay u sameysay Maxamed Qanyare Afrax oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada waddanka Holland. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baan taariikhdu waa 12 sanada 2019 ka marayna waxaan halkaan isugu nimid tacsi qaran waxaan halkaan ugu tacsiideynaa dhamaanteedba Allah u naxariisto siyaasigeena caanka ahaa ee Soomaaliyeed ee dhawaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya Maxamed Qanyare Afrax oo munaasabadan baroordiiqda aan ugu qabanayno maanta magaaladan Amsterdam ee waddanka Holland ayadoo munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen qaar kamid ah jaaliyadaha ku dhaqan waddankan Holland. munaasabada sida jeedaan waxaa nagala soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo qaarkood ay degan yihiin waddankan Holland qaarkoodna ay ka yimaadeen dhinacaasi Soomaaliya oo ah dad si aad ah u culus oo siyaasiyiin Soomaaliyeed ah waxaana la fadhiisaa joogtaan oo marti noo ah oo aad aan u qiimeynayna soo dhaweynayna senatarkeena qaaliga ah xildhibaan hore wax badan siyaasadda ku jiray senatar Cabdi Axmed Buxulow oo loo yaqaan Dhagdheer oo marti noo ah oo maantana ku soo beegantay asagana maanta munaasabada nagala qayb galo oo baroordiiqda Maxamed Qanyare Afrax. sidoo kale waxaa nala jooga ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda Carta lagu soo dhisay waddanka Djibouti Carta Djibouti Maxamed Cabdi Yuusuf oo ah deegaanka degan waddankan Holland mar walbana jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan ku dhaqan markay ay barnaamijyo noocaan oo kale qabsanayso u yimaada kana soo qayb gala. waxaa sidoo kale martida kamid ah nin saxafi ah laakiin saxafi aan jiray haddana siyaasadda ku soo biiray oo da'yar oo jaaliyadda Holland ka tirsanaa Cabdiwali Ibrahim Aadam Garyare oo asna marti noo ah laakiin naga guuray oo degan dhinaca Afrika iyo Muqdisho iyo Soomaaliya asna wuu nala joogaa munaasabadan qaaliga ah. waxaa sidoo kale nala fadhiya oo safka hore fadhiya Adeer Barre oo kamid ah odayaasha jaaliyadda waddanka Holland oo asna safka hore nala fadhiya isla markaasna kamid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan magaalada Rotterdam ee waddanka Holland maanta nagala soo qayb galay tacsiidan qaran. waxaa sidoo kale safka fadhiya Abduqaadir Nuune oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Isvola ee waddankan Holland isla markaasna kamid ah martida maanta nagala soo qayb gashay munaasabadan qaaliga ah. ugu dambeyn waxaa fadhiya gudoomiyaha guud ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Holland isla markaasna gudoomiyaha Efson Mudane Cali Waare oo asna maanta munaasabadan qiimaha badan iyo waliba tacsiidan qaran iyo nala jooga. waxaan si aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maadaama aan joogno magaalada Amsterdam isla markaasna aan munaasabadan baroordiiqda ku qabanayno Xasan Wehliye oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Amsterdam iyo nawaaxigeeda oo halkan nala jooga maanta. waxaan sii gudagalaynaa munaasabadeennii ayaan furanaynaa wax walba lagu bilowdo waxaa ugu wanaagsan aayadaha Quraanka Kariimka ah maadaama aan dad muslim nahay tacsina aan joogno waxaan ku furanaynaa aayadaha Quraanka Kariimka ah waxaan inoo akhrin doona fadiilatu Yunis Ali Umar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلتين كسوق بالكين يقيمتين يشرفتين وأنا ذيك جمع العليم الناس ونحسن وصوت خيب كشين جالية صوماليات أمستردام وحيابها أنت وحكميدا fadhigan aan maanta fadhino kale inaan dadkeena qiimaha lahaay dadkeena waxgalka ahaay oo geeriyooday xuskooda abaabulno bulshada isku keenno keena xanuunsan garab istaagno keena kaalmo u baahan garab istaagno jaaliyaddeena waxay u taaganta ugu intaas waay runtii qof kasta oo meeshaan fadhiya qiimaheeda iyo isku keenideeda u arkayaa marka waxaan leeyahay dhammaantii kusoo qaybgal wanaagsan waxaan rabaa inaan hadalkeedii ku dheerayn maadaama marti culus noo fadhido
dadkan banarka noo fadhiya aan qiimeeyo marka waxaan leeyahay waa noo furan yahay tacsideen aad iyo aad aan u mahadsantihiin kasoo qaybgal wanaagsan dhammaantiin horta anoo ku hadlaayo magaca walaalaha iyo mataqaanaa dadkii soo abaabulay gobashaan loona fidiyey magacoodana ku hadlay horta marka hore waxaan idinkaga mahad celinayaa sida uga soo qayb gasheen mataqaanaa baroordiiqda maanta iyo tacsida aan u samaynayno siyaasigeeni weyne allah u naxariistee maxamed qanyare waxaanan dadka meesha fadhiya dhammaantood aan ku salaamaya masabkooda iyo magacooda ay ku fadhiyaan maanta hadal badan ma jiro kolley waa isxasuusin qof walboo naga badan waa geeriyoonayaa wuu dhimanayaa marka waxaan leenahay dadkeena nool aan ka faa'iidaysana nolosha isagana mataqaanaa walaalkeen ama adeerkeen dhintan waxaan leenahay qabrigiisa allaha u nuuriyo jannadii allaha ka waraabiyo mataqaanaa gadaashiisa ilaahayna ma fidnayo marka anoo ku hadlaya dadkii meeshaan gobashaan dhigay magacooda waxaan leeyahay walaal aad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka meeshaan kasoo qayb gasheen hadal badan ma jiro إن لله وإنا إليه راجعون وحان سيجارة تعسي خاص ودرايا أهلكي خاص كها يفهملكي وكبحي إن إلهي السمر إيمان وكسير وذريتي يبتغى ضدك والدك وحقاقك وحق عن الجوجان حلايا هاي سمر إيمان إلهي كسير عيجنا أنا جنا وحلايا هذا ما أنت بسمر إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان وسلام يا مرتشرف تقيمها بدن مدشان كسو قيب شيء inta ila fadhida baanalka iyo inta dadweynaha iyaguna goobta nagula sugan intaas kadib waxaan ka tacsiyeynayaa allah u naxariistee geeridii ku timid hogaamiyihii weynaa wasiirkii hore ee amniga dowladdii soomaaliya ee ku-meelgaarka ee federaal ee ugu horreysay dalka soomaaliya uu yeesho kadib burburkii maxamed qanyare afrax markaan ka hadlo taariikhdayda hore ee saxaafadda wariyayaasha markaan ahayn dadka aan ugu jecelayn ee soomaaliyeed ee hoggaanka siyaasadda ku jiray ee mudan in la wareysto markay halkii war aad ka qaadinna uu kuu samaynayo 10 war ama 20 war oo kala duwan oo miisaankiisa leh oo muggiisa leh ayuu ka mid ahaa maxamed qanyare afrax waxa uu ahaa dadka Soomaaliyeed ee afqariga ku ah afka Soomaaliga ee hodanka ah waxa uu ahaa nin aad geesi ugu ah waxa uu rabo inuu sheegto ee aan yoocyoodka hadalku ka ahay ama aan afka maaragtay geesaha ka marin waxa uu rabo sida darteed waxa uu ahaa tusaalaha ugu dambeeyay aad ka garan kartaan waad ku mahadsantihiin horta cusmada nasiiseen ee ku saabsaneyd maanta tacsida aan uu dhammaanteen kusoo wada xadiro marka hore waxaan la ilaahay u naxariisto maxamed qanyare afrax waana la wada ogyahay qof kastaba oo Soomaaliya dibadda jooga uu fahmi karaa xaaladii marxaladii adkeyd ee dhulka Soomaaliyeed dadka hogaamiyaasha ah ee ku sii dhabar adeegay in wadanka ay sii joogaan inay mataqaanaa muujiyeen dhabar adeeg wadaninimo taasna waxay noqonaysaa waa wax lagu dayan karo oo dhammaanteen aan mataqaanaa dadka qurbeena jooga aan dareemi karno ay wadankeenii yacni hogaamiyaashii ama dadkii ku sii mintiday ee weli calankii iyo hawshii Soomaaliya magacii Soomaaliya ay sii hayaan marka waxaan leeyahay eheladiisii iyo dhammaan intii uu ka geeriyoodanay waxaan leeyahay samir iimaan ilaah ka siiyo isagana jannadii firdawsa ilaahay ka waraabiyo maxamed qanyare afrax wuxuu ahaay marka hore taan u tacsiyo dadkii uu ka baxay iyo Soomaaliya oo dhan marka labaad maxamed qanyare afrax wuxuu ahaay dadkii aasaaska u ahaay ee sacrifice-ka sameeyey ee keenay dowladda maanta aan haysanno ruuxantii qof walba si kale ayuu u qaadan karaa laakiin wuxuu ahaay dadkii tanaasulay sacrifice-kana sameeyey ruuxantii uu kubay dowladda maanta jirta midda kaleeto wuxuu ahaay nin Soomaali ah nin geesi ah nin hal waxa uu qaba aan qarsan ee sheegtay uu ahaay ruuxantii waxaa kaleeto lagu tilmaamaa inuu ahaay dadkii aan waqtiyadii la soo maray taariikhdu waxbay isku rayso waqti dheer ay socotay dadkii u kala carari jiray dowladaha dariska ninka kaliya wali Itoobiya tagay inuu ahaay waxa weeye horta ilaahay subxaanahu qaadir ay naxariista ka waraabiyo maanta duco ayuu nooga baahan yahay inaan u ducayno ilaahay naxariista ka waraabiyo ilaahay qabrigiisa u waasiciyo intaas waa intii duco maxamed qanyare horta dadka aad iyo aad u yaqaan kamid aha inta aan haddaan ka sheekeeyo waxba aan ku sii fogeynayno meesha tacsiyo u nimid horta maxamed qanyare nin muwaadin oo ahay muwaadin dhab oo weligii inta aan ka aqaan shisheeye inuu dalkiisa u hoos galo ama u hogaamiyo man raba ka xishoon jiray horta anigu waxaan bartay marxuum maxamed qanyare
sanadkii 2006 wax badan oo hadda aad u sii ballaaran oo na dhex maray ma jirin laakiin muddo kooban ayaan la shaqeeyey wuxuuna ahaa nin runtii markasta ay ku weyn tahay qarannimada Soomaaliya meelaha kale oo laga xusi karo inuu dawladda yacni dawlad jacayl uu ku jiray dawladihii la soo maray sida muxuu ahaa dawladdii Cali Mahdi tii muxuu ahaa Cabdiqaasim tii muxuu ahaa xataa Caydiid oo aan shaqaynin dhammaantood uu ku biiray oo wuxuu isku dayay inuu markaasi la shaqeeyo dawladdii federaalka ahayd ee ugu horeysana yacni federaalka hadda aan haysano waa kii wasiirka ka noqday marka dabcan waxa weeye qof markaasi aad iyo aad loo hubo in uusan weligii shisheeye la shaqeyna uu ahaa siiba wadamada deriska aan jeclayn inta kale waxa weeye dadku aad u garanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay u naxariisto aad iyo aad ayuuna maaragtay dalka iyo dadkaba u jeclaa nin codkara oo wanaagsan oo Soomaaliya inay mar u meel gaarto jecelna wuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa naga jeclaaday waxaan leeyahay qabriga allaha u waasiciyo dambigiisana allaha dhaafo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marxuumka maxamed qanyare afrax ilaahay naxariistii jannaha siiyo ilaahay idinkii meeshaan baraarudiiqda aan meesha ugu nimid aan tacsiir inaan u dhigna aan u nimid inaan u ducayno waayo qofka hadduu geeriyoodo waa culamada taas iga aqoon badan waxa anfacaya waxa waaye in loo duceeyo inta badan baa ogtiina qofka dhintay insha allahu waxa waaye inaan annaga u ducayno waajib diini ah oo islaamka dhan looga baahan yahay kulligii waa idin wada salaanta islaamka ilaahay inta waxaan uga baryayaa adeerkay oon aad u jeclaay inuu ilaahay qabrigiisa u waasiciyo wanaagga iyo samaanta oo noo sameeyeen inuu ilaahay ka abaalmariyo maanta u baahan yahay ilaahayna maaragta adinka dhan waxaan idinkaga rajeynaa inuu ilaahay khayr badan idin siiyo waana idin wada salaamaa sida sharaftana u imaateen aad ugu mahadsantihiin naciima aad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan soo gaaray ogeysiis yar wiil Soomaaliyeed oo halkan jooga ayaa waxaa ka dhumay sida la ii sheegay fure marka qofkii furo arka marka hal la xiriiro Xasan Yare ama Xasan Wehliye si markaas wiilkaas loogu geeyo waa mahadsantiin wali waxaan bartan kaga jirnaa dhinacii khudbadaha iyo dadkii kala duwanaa ee halkan maanta isugu yimid isla markaasna jeclaaday inay halkan ugu tacsiyeeyaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay siyaasigeenii maxamed qanyare afrax iminka waxaan u yeerayaa nuur xasan adeer nuur xasan oo loo yaqaana nuur tusbaxle oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed odayaasha Soomaaliyeed ee wadankan Holland jooga isla markaasna jeclaaday maanta inuu halkan ka soo qayb galo si taxtidu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan u malaynaa waxaa la isugu yimiday waa tacsina war badan oo kama fura ujeedku wuxuu ahay duco marxuumkaas in lagu duceeyo wixii ka sheekayn iyo siyaasad iyo waayo aragnimo siyaasiyiintii u joogto iskale arrinkaas marku waxaan u nimiday tacsidaas waxaan leenahay maxamed qanyare allah u naxariisto ilaahay kitaabkiisa midigta ha ka siiyo ahalkiisina sadri iimaan allah ka siiyo awlaadiisii iyo xaasaskiisii iyo intii la dhalatay intii ahal u ahayd bobsami iimaan allah ka siiyo jaaliyadda reer Holland oo ka soo qayb gashay tacsiyadiisa oo timidna waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin qaybgalkiina aad ka soo qayb gasheen sida odagaba uu sheegay markii hore labadoon bare maxamed wuxuu nooga baahan yahay in loo duceeyo inaan u ducayno ilaahay u barino in ilaahay qabrigiisa u waasiciyo jannatul firdaws alla geeyo
mikrofoonka aan ku wareejin doono senator cabdi axmed dhuxulow dhagdheer oo noogu yimid wadanka Soomaaliya oo maalmahan howlo shaqo u joogay qaaradan Yurub isla markaasna wax badan ka yaqaana taariikhda Maxamed Khayare Afrax maadaama senator cabdi axmed dhuxulow dhagdheer uu ahaa nin wax badan siyaasadda ku jiray meelo badanna soo maray wax badan aan ka faa'iideyn doono asaga naftirkiisa waxaan leenahay maadaama aad tahay senator nin nagu qaali ah oo Soomaali noogu yimid oo madaxda dalka ka mid tahay waan ku soo dhaweynaynaa marka hore soo dhawow wadankan ku soo dhawow Holland saadjeeda qeybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaalida ayaa halkan fadhida madaxda jaaliyadda Soomaalida way fadhiyaan mikrofoonka marka aad khudbadaada dhamaysatadna waxaad sida protocolku u yahay ku wareejin doontaa ra'iisul wasaaraha bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka hore waa idin salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tacsi waxaan u malaynaa wejiyo badan oo isnaqaano iyo kuwa isugu keenna cusubtaaba halka waa fadhiyaan markay tacsi ama aroos iyo waxyaabaha lamid ay tahana hadalku waa yaryahay annaga siyaasiyiintaynu waa hadal badan yihiin laakiin maanta hadal yaraad iga sugaysiin hadal badan ma jiro marka hore waxaan rabaa inaan idiin mahadceliyo jaaliyadiina Holland oo meelo badan oo wadanka ka mid ah isaga yimiday oo isugu yimiday tacsida Maxamed Khayare Afrax Ilaahay oo naxariisto waxaan u malaynaa waxa isku keenay waa inaad xasuusataan oo marka ugu horeysa bal walaalkiin inaad tiraahiin Ilaahay oo naxariisto inaad tiraahiin inaad saas ugu timaadeen waxaan rabaa inaan horta marka hore Ilaahay ka barino diraahdo Ilaahay dhammaanteen isugu keenay dambi dhaafo isu imaatinka aan isu nimid marka labaadna walaalkeen Maxamed Khayare Afrax oo duco badan halka looga mariyay inaan niraahdo Ilaahu adaan naxariista haye u naxariiso marka saddexaadna inaan wax yar idin isxasuusino oo maadaama laygu aniga rag badan ay yidhaaheen aqoon dheeraad ay isu lahaayeen arrintaasuna ay sax tahay Maxamed Khayare Afrax waa soo wada shaqaynay weliba wada shaqayn maahane odagayga siyaasaddu ahaa wuxuu ahaa nin runtii aad waxaa laga yaabaa mararka qaar Maxamed Khayare qofkaan noqonin hadalkiisa maqashaa nin adayg badan inay ku qiimeyn lahayd Maxamed Khayare wuxuu ahaa nin tanaasul badan nin adayg badan maahay waxyaabaha uu ka shaqaynayay oo siyaasaddu ugu weyneed nin ku tanaasul badan uu ahay oo jecel halku dhigyo badanna lahaay oo dhihi jiray wuxuu ku cabiri jiray siyaasadda markuu ka hadlaayo wuxuu dhihi jiray subaxdii waxa ay goysaa galabta laga bixiyaa example macnaa ma ahayn dadka yiraahda oo tanaasulka diida ma ahayn wuxuu ahaa dadka tanaasulka mar walba u fudud u ah waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo shirka Imbagati oo ra'iisul wasaaruhuna uu nala joogay oo markaa ra'iisul wasaaraba ahayba wadanka Maxamed Khayare Afrax hadaani ahayn Maxamed Cabdi Yuusufna waa ii markhaati ku doonaa shirkaas waxba kuma dhisna waa ninka odaga oo tanaasul inta soo dhaafay shirka u fariistay markastoo la kala caroodo la isugu soo noqon jiray oo markii u dambeysay madaxweyne Museveni oo yimiday retreatkii wixii loo bixiyay loogu yimiday gogosha inta looga tago looga tago 2 sano aan ka dhaqaaqin meesha gogosha ay tahay waxyaabaha aan rabo inaan maanta idiin sheego xasuustaydana ku weyn waxaa ka mid ahaa wadamadii oo safka hore la dhihi jiray Soomaaliya ha soo galaan la yiri maalintii baarlamaanku isku dilay Nairobi oo maqasheen dadkii hogaaminayay inuu ahaa inaysan wadamada safka hore oo Soomaaliya danaha kale inaysan noo imaan asigoo la danahooda ay nagu fushanayaan ay noo imaanin ciidamadooda dad badan runtii arrintaas ka mid ahay laakiin dadka aan dhihi karo hoggaan uu ahaa ka mid ah waxa kaloo nin walaalo hadda halka ka tagay uu sheegay maalintii sidoo kale ayadana dad badan ka liidiyay laakiin hormuud ka ahaa
maalintii badda Soomaaliya laga hadlayay oo ilaa hadda murankeedu taagan yahay oo dad badan oo ay siyaabo kala duwan uga hadleen xukuumadda maalintaas jirtana si uga hadashay baarlamaankii yiri ma aqbalayno badda dadkii ugu hormuudka ahayoon xasuusto oo subaxii ilaa inta codku ka dhacay baarlamaanka ku dhex rafanayo ka mid ah iyo waxyaabo badan oo kale oo waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa nin Soomaaliya oo Soomaalinimada jecel oo dawladnimada jecel idinkana aad iyo aad aan runtii idinkaaga mahadcelinaa inaad maanta halkan isugu timaadeen sidoo Soomaaliya ku dhintay idinkoo Holland jooga inaad halkan ka jiraahiin ilaahay ha u naxariisto aad iyo aad runtii ugu sharfantiin idinkaagana mahadcelinayaa waxaana leenahay dhammaantiin anoo afkiina ku hadlaayay iyo dadka kaleba ilaahay maxamed qaahira afrax jannata firdawsaha ka waraabiyo amiin hana muxuu ahay kitaabkiisana midigta ka siiyo runtii qofka dadku haday gadaashiisa yiraahin qofku qof fiican oo ahay marxaati waa dadku bismillaahi rahmaani rahiim horta waa salaamay salaamka bacdi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan u fadhina waxaa weeye laga geeriyooday doortiisii ama u keenay oo Soomaali ah oo wadani ah oo soo wada shaqaynay baan u fadhinay taxsiis ilaahay jannada firdawsa ha ka waraabiyo annaga oo dhan Soomaaliyeed ilaahay sababkii waan laga siiyo gaar ahaan awlaadiisii qarabiisii gaar ahaan ilaahay sababkii laga siiyo odaga maxamed aniga waxaan isbarnay 93 waxaan isku barnay shirweynigii Itoobiya lagu qabtay 93 bishii Diseembar oo la isugu diray Soomaaliya meesha isugu tagtay intii ka dambeysay laba nin oo wada shaqeeyo oo si yimaado sarkaan shirka arteenu ka wada qayb galay kii bigaati baan ka qayb galay kii mataqaanaa Jabuuti kulmada ayaa ka qayb galay iyo shirar gaar waxayna intaas uu ka mid ahaa dadkii muuqaalka ka dhex muuqday oo sidii mataqaanaa Soomaali dawladda loo soo celin lahaa aaminsanaa uu ka mid ahaa waxyaalaha uu tarasugaad ka sameeyay waxaan garanayaa say nin kale oo markaa isku xisbi ahaayee waa jagada isku qabsaday sidii waa kaaga tagay hadda magaciisa sheegi maayo marka waxa weeye dawladda hadda jirta waqtigii loo soo maray oo burburkii ka dambeeyey raggii dhexaadka ka ahaa oo ka mid ahaa in dawladda Soomaali soo noqoto oo magaranaysaa dib mataqaanaa ay sheegayeen qarankiisa soo laabtay ka mid ahaa waana mabda xalaala oo taariikhi ah oo qof kastoo muwaadin oo macno leh واجب لولا هاي إنه بيكتب لولا تحقق لي روح قط بقاسة لكن محاولة قاسو كملها ولكن قد مغار كانوا قد حملوها ما هي كسكت ما هي أو كسكت كسكت الصوت ما هي هاي بس أقل بس ما شك شيء ما يسوي ما Soomaali wadanaha Soomaaliyeed ilaahay ha naga saraysiiyo sabir jannada ku bisaafaarayo annagu dhan sabirada marsiyo marbaasakii intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah oo idin kaga imaanayay magaalada Amsterdam ee caasimadda waddanka Holland barnaamijkan ayaan ku fiirinaynay kulan baroordiiq ah oo loo sameeyay Maxamed Qanyar Afrax oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee caanka ah Allah u naxariistay siyaasiga ayaa ku dhintay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya horaantii bishaan anigoo ah Tawfiiq Shira Muuse ayaa barnaamijkan idin soo jeedinayay tan inta barnaamijkan lamida ku kulmi doono waa bahda SNTV oo isku duuban oo idin la nabadgeliyo